بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا حوكتا دهصون حكماوي channel حوكتا دهصون كسو دوادا إيا مانتا موقال أين دكولو وداقي دونو دقاحا لو يقانو أسترويد دقاحا لو يقانو أسترويد أول شاعيي إنو صودع دونو سغالي لاتكا بشها أبريل أيا إنو كله فقوري دونا waxaan qodobada aynu ka hadli doono waxa weeye qaabka uu soo dhacay dhagaxaasi xajmigiisa xawaaraha xilliga uu soo dhici doono iyo cidda ka hadashay haddii aynu ka horeyno dhagaxan asteroid 1960 ilaa 1970 ayaa waxa uu ku soo dhawaaday Earth ama dhulka ayaa uu ku soo dhawaaday kaasi oo ay sheegtay hay'adda cilmi baarista hawada ee NASA ay sheegtay inuu dhagaxaasi in yar u soo jirsaday qarniyadaasi taasi oo shaacisay inuu dhagaxan xajmigiisu aad u weyn yahay haddana hay'adda NASA ayaa waxay sheegtay 29 bisha Abriil inay soo dhici doono kaasi oo khalkhal gelisay shacabka ama ummadda ku nool dhammaan caalamka shirkadda loo yaqaano Tazid shirkadda ama shabakadda loo yaqaano Daily Express ayaa sheegtay ama baahisay digniin barteeda ay ku soo qaaday Twitter-ka iyo meelo badan taasi oo ay uga digtay dhammaan ummadda ku nool dunidani inay ka taxadiraan 38,000 kiiloomitir saacadiiba ayaa uu jarayaa dhagaxan loo yaqaano asteroid kaasi oo cabsi geliyay dhammaan ummadda haatan waxaa digniino fara badan barta YouTube-ka Twitter-ka Facebook-ka Instagram-ka iyo meelo kale oo baraha bulshada ka mid ah lagu soo dirayaa inuu bisha 29keeda uu soo dhici doono musiibooyinka ayaa iska sii daba dhacaya kaasi uu ka sii daran yahay musiibada corona inuu ka sii darnaaday dhagaxan oo la saadaalinayo maanta inahaasi ayaynu ku soo gabagabayn doonaa dhagaxan loo yaqaano asteroid wixii warbaahinaya soo gaadho waa idila soo socodsiin doonaa waa barta daawanaysaan waa xigmaawi channel haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe garee like iyo share iyo comment inta noogu ekow allah ku sharfee waxaan ku rajeynaynaa